bismillaahirraxmaanirraxiim kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT-ga iyo English ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu waa Cabdinaas Ismaaciil. Emailka aad mar walba nagala soo xiriiri kartaan waa info@sologroups.com. waxaanu baran doonaa cashar ka mid ah casharada request a lesson ama cashar ay soo weydiiyaan qaar ka mid ah ardayda wax ka barata shabakada sologroups.com. waa cashar aad u xiiso badan oo la yiraahdo how to link YouTube account to Google AdSense. marka YouTube taban waa naqaanaa, AdSense, Google AdSense waxa laga yaabaa ardayda qaarkood inay yaqaanaan laakiin kuwa kale aan aqoon. Google AdSense waa dhinac business ah ama ganacsi ah oo Google maaragtay ay lacag badan ka sameeyaan. sanadkan hadda lagu jiro 3 bilood ugu horeysa waxay ka sameeyeen ilaa iyo $13 billion ay ka sameeyeen. 13 bilyan ay ka sameeyeen lacag runtii aad u fara badan. saa awgeeda dhowr sano ka hor waxay go'aansadeen in ay lacag bixiyaan dadka isticmaalaya serviceka iyaga ay leeyihiin sida YouTube, hadduu yahay video, hadduu yahay image, hadduu yahay qoraal, sawir, wax walba in ay ku bixiyaan waxa la yiraahdo double click ama labada jeer la riixo oo laga sameeyay. marka inta badan waxaad ku aragtaan ayaan filayaa video cusub oo ay soo geliyaan website-yada Soomaaliya laga soo sameeyo oo ay soo dhexgeliyaan wax attractive waxa la yiraahdaa wax qurux badan oo dadka soo jiita ayaa la yiraahdaa. waxaa laga yaabaa waxyaabo aan jirin inay soo geliyaan sida gabadhan waxay sameynayso kale. marka inta badan dadku inay eegaan ayaa laga yaabaa. kaasna haddii la riixo AdSense ayay lacag taanooyin ama wax u dhigma ka helayaan. marka casharkan waxaan ku baran doonaa sida caadiga ah loo isticmaalo. runtii lacag aad u fara badan ayaa laga sameyn karaa haddii aad leedahay YouTube account iyo AdSense haddii la isku xiro. marka ugu horeyn waa inaan sameynaa YouTube. tabcan YouTube account sida loo sameeyo waa waxa ugu fudud adduunka. waxaa kaliya lagaaga baahan yahay Gmail account inaad samaysid. Gmail account xilligii aad samaysid kadibna isla markii waad leedahay YouTube account. marka waxaa loo baahan yahay inaad ku samaysid waxa la yiraahdo verificationka waa si 15 daqiiqo limitka ah aad uga badisid. waa inaad xaqiijisaa in aadan ahayn spammer ama qof u sameeya nooc kale u isticmaala oo emailo iyo videos kala duwan u sameeya. saa awgeed waxaa lagaaga baahan yahay ama mobilekaaga in lagugu soo diro code ama waxaa loo baahan yahay in cod lagu soo diro. saa awgeed waxaa laga dhigayaa unlimited, intaad doontid ayaad ku shubi kartaa. marka tabcan Google wuu ku ogol yahay YouTube accounts kala duwan oo fara badan inaad samaysid, laakiin content waxa ku jira accounta waa in ay kala duwanaadaan. tusaalahaan haddii aan idhaahdo 10 account ayaan furaya YouTube ah, isla 10 video isku mid ayaan ku samaynayaa, aan gelinayaa si aan lacag uga sameeyo, lagaa yeeli maayo, waa lagaa xirayaa. waxaa kaloo loo baahan yahay in aad iska ilaalisid waxyaabaha lagaaga xiro ama limitka laga dhigo. hadda YouTube waxay isticmaalaan in haddii copyright lagu warko kale laga dhigo limit dhowr bilood, 15 daqiiqo in ka badan kuma shubi kartid. haddii mar labaad ama mar saddexaad lagu qabtana gabi ahaan account-ka lagaa xiro. kaas haddii lagaa xiro wixii ku jiray gabi ahaan waa laga saaray. inta badan dadka waa laga xiraa. marka sida iska ilaalisa business aan uga samaysaa ganacsi aan uga samayn kartaa waa adiga copyright iska ilaaliya sida cod. tusaalahaan haddaad istiraadid video, hadda waxaa jira fanaaniin Soomaaliya oo video iyagay leeyihiin aan la soo gelin karin YouTube-ka oo isla markii hore ayaa lagaga xiraya. sababtoo ah waxay iska diiwaangeliyeen website sameeya copyright-ka noocaas oo kale oo iyagina ay leeyihiin musicaas qof kale aan isticmaali karin. haddii aad isticmaashid sports oo kale, fanaaniinta adduunka caanka oo kale haddii aad isticmaashid isla markii hore lagaga xiraya. marka lacagna lagama samayn karo, maba la ogolba in laga sameeyo. kadibna waxaa samaynaysaa AdSense account. sida loo sameeyo aad ay u fududahay. waxaad tegaysaa Google-ka, AdSense ayaa samaynaysaa, emailkaada ayaad ku xiraysaa, kadibna waxaad hore ka isticmaalaysaa link ayaa lagu sameeya. marka qaabkaas ayaan baran doonaa. laakiin AdSense laguma ogolo account halka badan inaad samayso. YouTube lagu ogol yahay, waana ku link garayn kartaa adigoo videos kala duwan gelin kara. marka saas ayaan ku baranay. ugu horeyn waxaanu eegaynaa YouTube account aan hore u samaynay ayaa halkan ku furan. tabcan waa in aad login ku samaysaa account YouTube-ka. kadibna waxaad tegaysaa dhanka bidix my channel ayaad tegaysaa. markii aad tagtid tijaabo ahaan waxaanu ku dubnay hal video ayaanu gelinay. videogaasoo ah how to set up a VPN server in Windows 2008
weli kumaanan darin tags iyo descriptionka wuxuu ku saabsan yahay videoga marka waxaad tegaysaa halkan dusha waxaad aragtaa in subscribers uusan lahayn videoga طبعا waxay intusayaa video kale account kale YouTube ah oo subscribers ama dadka ku xiran uu leeyahay more subscribers aad leedahay more lacag aad ka samayn kartid sababtoo ah video walba aad samaysid oo aad dirtid isla markii qofkaas wax uu dhacaya emailkiisa uu ka eegaya marka waxaa laga yaabaa dad qaarkood inay haystaan 100,000 200,000 subscribers one click lacag badan ayaa ka imaanaysa marka waxaan tegayaa video manager ayaan tegayaa kadibna waxaan leeyahay video waxba laguma sameyn actionkiisa waxaan leeyahay edit ayaan leeyahay markaan idhaahdo waxa halkan yaala how to set up VPN Windows server marka waxaad ku aragtaan monetization ama lacagaynta weli active ma ahan waayo lagama dhigin active sida looga dhigay ayaan isla eegaynaa halkan waxa yaala advanced setting kaasoo ah commenting marka waxaa la sameeyaa ugu horeyn ingiriis ayaa la isticmaalaa haddii video gooni aad gelinaysid tusaale ahaan haddii heesa Soomaaliya aad gelinaysid oo kale marka way adag tahay sidii la yiraahdo in loo isticmaalo ereyga Soomaalida isticmaashid waxa kaliya oo eegaya qof Soomaaliya laakiin muhiimadda descriptionka waxa ka horeeya tag aad ayuu muhiim u yahay tag wixii aad ka hadlaysid haddii aad qortid tusaale ahaan inkastoo uu luqad af Soomaali u yahay haddana tag waxaan u isticmaali karaa Ingiriis more people oo luqadda Ingiriis ku hadashay ayaa soo heli kartaa marka waxaan leeyahay VPN kaligiis ayaan leeyahay capital letter hakad ayaan gelinayaa halkan waxaan leeyahay Windows marka waxaan chance u leeyahay qof VPN doonayay qof Windows eegayay inuu yimaado haddana waxaan ku sii darayaa Windows 2008 marka ma doonayo inay dhaafaan dadkan oo dhan kadibna waxaan leeyahay VPN setup marka halahani waa tag muhiimka tagaga waa unlimited laakiin laguma ogolo tag dheer inaad gelisid laguma ogolo system buu diidaya waxaan kaloo ku dari karaa network waxaan kaloo ku dari karaa Windows iminka waxaan leeyahay Windows waxaan sameeyay Windows 8 aan run sameeyay Windows 2008 iminka Windows waxaan leeyahay 2008 VPN setup ayaan leeyahay marka iska ilaali tagga dheer ma ogola YouTube in la geliyo marka waa sii wadaysaa ilaa aad ka gaartid objectivekaaga waxaad adiga aad u baahan tahay leedahay waad ku gaartay sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in aad heshid more tags xusuuso dadku waxay sameeyaan search ayay sameeyaan search xilliga ay sameeyaan videogaaga haddii aad doonaysid inaad wax ka samaysid waa in uu ahaadaa unique oo kan ugu koreeya uu ahaadaa tusaale ahaan waxaanu tegaynaa oo aan furaynaa Mozilla Firefox ayaan furayaa waxaan leeyahay YouTube ayaan furayaa ama YouTube anoo furin waxaan sameynaa dadka YouTube ma furan waxay furayaan tusaale ahaan Google ay furayaan waxaan leeyahay how to change your Facebook name Facebook name without waiting 60 days without waiting 60 days tusaale ahaan qof ayaa doonaya inuu YouTube-ka u bedelo waan u jeedaa waa drop down ayuu sameynayaa Ajax qof ayaa doonaya inuu bedelo how to change your Facebook name waaba galay waad jeedaa wuxuu galay dhankii Google ayuu ku jiraa search engine-ka Google ayuu ku jiraa marka how to change your Facebook name without waiting 60 days waxaa laga soo dhaxelay YouTube-ka sababtoo waxaa laga soo dhaxelay Facebook sababtoo Facebook wuxuu ku leeyahay 60 maalmood waa inaad joogto marka qofkii wuxuu doonayaa san ayuu ku qoray Ingiriisa markuu qoro bal eeg waxaa soo baxaya videoga number 1 ka ah oo dusha uu soo saaray waa video aniga aan sameeyay number 1 ayuu ka yahay adduunka oo dhan marka inta search ku jirta eeg 41,600,000 ayaa ku jirta kan ayaa number 1 noqday wuxuu u noqday tagga iyo habka loo geliyay iyo sameeyay marka lacag badan ayuu sameeyay markuu number 1 noqdo haddii aan riixo waxaan ku aragnaa waan joojinayaa waa English sababtoo ah more English wuxuu noqonayaa xayeysiinta in ay doonayaan in loo geeyo marka videogan gorma la geliyay 1 August 2014 waa waqti iminka laga joogo dhowr bilood muxuu helay 15,000 wuxuu marayaa iyo marka waxa potential u ah in uu gaaro 1 milyan inuu gaaro marka sababta AdSense-ga ay ugu bixiyaan lacagta Google Ads setting ay ugu bixiyaan lacagta waa halahan ay lacag ka qaataan billions ay ka sameeyaan marka qasab waxay ku noqonaysaa in ay ku siiyaan marka waxaad aragtaa isla account-kan kaliya anigu account badan ku leh YouTube account-kan kaliya waxa subscribers ku ah dad ku dhow 7,000 oo qof ayaa ku dhow marka 7,000 oo qofood
haddii ay 10 kun ay noqdaan potentially waxaa laga samayn karaa kan keliya waxaa laga samayn karaa accountkan keliya waxaa laga samayn karaa haddii ay wada riixaan lacag ku dhow ilaa iyo $2,000 ayaa laga samayn karaa bishii marka qaabkaas ayuu u shaqeeya marka videogii waa kan intan qofood ay comment ka bixisay qof walbana commentga ayuu raacaya ujeeda tusaale ahaan 10 great solution you're my hero great thanks working marka dadkan ayay soo raacayaan kadib xilligaa samaysid description ayaad u baahan tahay waxaad leedahay af ingiriisi ku qoraysaa this is the best way of creating a VPN description ka tagtay VPN a server VPN server marka waxaad inta ku sidaraysaa video san ayuu noqday marka kadib wax walba waan sameeyo waxaan leeyahay safe ayaan leeyahay marka haddii video af Soomaali uu yahay oo aadan doonaynin abuse iyo trolling lagu soo daba raacayo doonin advance ayaa la tagaa waa laga saaraa commentiga laakiin commentiga waa u fiican yahay sababtoo ah more people ay arkaan more oo lagu soo raacaya marka waxaan leeyahay waxaan bedelay safe kaliya ayaan leeyahay marka weli ma arko monetization ama lacagta lagu heli lahaa ma arko marka waxaan tegayaa ugu horeyn waxaan tegayaa analyticska ayaan tegayaa dhankan YouTube videoga markii aan tago waxyaalo badan ayaa ku jira wuxuu ku leeyahay your channel does not have any views yet mar dhow ayaad publish lagu sameeyey marka cid maaragtay si loogu sameey kan marka sidee loo sameeyaa marka waxaa loo sameynayaa qaab loogu soo daraa jirta monetizationka loogu soo daraa jira marka waxaa sameynaysaa isla kan ayaa furaysaa waxaad leedahay tabcan waxaa noo furan AdSense ayaa noo furan marka uma baahnin waxaan leeyahay kaliya halkan ay ku qoraysaa how to monetize YouTube oo ka soo baxay halkan ayuu saan u yaalaa isagoo qoraal ah isagoo marka support wax walba ah halkan ayaad riixaysaa ama waxa ka fudud waxaad tagaysaa kaliya meesha aad ku qoraysaa marka halkan ayuu ku sheegay marka waxa muhiim ah sababta halkan aan ugu soo galnay tabcan waxaan ka geli karnaa dhan kale oo fudud ayaan geli karnaa intuu si doono laakiin sababta aan halkan ugu soo galnay waxay tahay in aad ogaatid criteria ama waxyaalaha lagaga baahan yahay wuxuu ku leeyahay you must meet this requirement si videogaaga uu noqdo mid monetize loo ogol yahay content waxa ku jira waa inay ahaadaan advisory friendly wax maaragtay qof dadka anfaca la fahmi karo wuxuu ku socdan la ogaan karo marka waa inaad haysataa permission ama fasax ka haysataa commercially haddii aad u isticmaalaysid ganacsiga marka haddii lagu qabsado waa inaad haysataa video ama evidence ama wax walba lagaga baahan inaad samaysid sida ayaa loo raacaa marka tipska kan waa muhiim in aad eegtid inta aadan ku samayn sababtoo hore ayaa lagaga xirayaa waa muhiim hore ayaa looga xirayaa marka haddii aad doontid halkan ayaa yaala halkan ayaa tegaysaa tipska halkan ayaa ka arkaysaa marka markii halkan aad tegtid waxaad samaynaysaa halkan waxa yaala halkan ayaan sii raacina weli monetize your videos marka enable and disable kan ayuu halkan ka noqonaya marka halkan waxa yaala become a partner kan haddii aad reexdid waxaa lagu leeyahay next YouTube and AdSense isku dar ayaa lagu leeyahay next associate YouTube and AdSense waad riixaysaa ugu horeyn waxaa lagu leeyahay halkan aad ayuu muhiim u yahay is against AdSense waa sharciga AdSense u yaala ayaa kasoo horjeeda in aad duplicate account aad samayso horna waa idinku sheegay laba account ha ahaadaan waddan kale magacyo kala duwan IP address kala duwan Google waa very clever way soo ogaanayaan waana kaa xirayaan iyadoo lacag badan ay ku jirtay kaa xirayaan sababtoo ah waxay ogaanayaan contentiga meesha laga soo galay sida loo isticmaalay ereyada wax walba waa ogyihiin marka qaabka ay lacagtu u bixiyaan account waa inaad haystaa kaasna waan ka hadli doonaa waxayna gaaraan waxa la yidhahdo payment threshold waa quarter threshold waa meel ay gaaraysaa lacagta tusaale ahaan haddii aad ku heshiisaan $1,000 markay gaartay inay kuu soo diraan haddii aad ku heshiisaan $500 haddii aad ku heshiisaan $2,000 adigun bay kugu xiran tahay marka laakiin intaadan samayn waxaad u baahan tahay monetizing your video enable and disable videos marka introduction page channel waxaan dhan ayaad eegaysaa waxaad leedahay waxaan doonayaa in monetize aan ku sameeyo tusaale ahaan introductionka haddii aad eegtid waxaanoo dhan waad akhrinaysaa haddii aad doontid paid subscription kan good idea maan haddii channelkaagu yahay channel dad badan ay ku xiran yihiin dabcan waad samayn kartaa waxaad oran kartaa waxaan doonayaa in aan samaysto paid only dadka daawanaya waa inay lacag bixiyaan taasi waa laga fiican yahay waxaa kaloo halkan ku jira monetization marka si aad u samaysid waxaad samaynaysaa halkan go to account monetizationka kan ayaad riixaysaa YouTube accountku ku furan yahay kan ayaad riixaysaa markii aad u riixdid waxaa halkan yaala oo aad ku aragtaan
inuu yiraahdo enable account marka wuxuu leeyahay account-kaaga weli enable ma aan ana kuma aan sameyn marka waxaan leeyahay enable ku samee I have agreed I agree ayaan leeyahay marka haddii aad doonaysid waxaad ku qoraysaa kaliya youtube.com/account_monetization ayaad ku qoraysaa uma baahnid sababtaan intaas waxay ahayd inaad fahantaan qaabka loo isticmaali kariyo laakiin uma baahnid meelihii inaan tago halkan ayaad tegaysaa ayaad ku qoraysaa accept ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay overlay videos xayeysiinta waa la gelin karaa waxba dhib male waxaan leeyahay monetize ayaan leeyahay marka kadibna waan fahmay ayaan leedahay waxaa laga hadlaya monetize waxaan arkaynaa mar dhow haddii aan tago halkan channelkayga haddii aan tago video manager ayaan tegayaa video halkan uu yaallaa waxaan tegayaa analyticska ayaan tegayaa markii aan saanan u furo channelka tabcan uu kuusii sheegay waxba kuma jiraan iyo ku leeyahay marka waxaad u baahan tahay in aan linka ku samayno markan dhankii accountkeena AdSense uu yaallay iyo kan inaan isku xirnay ayaan doonaynaa marka si aan u sameeyo ugu horreyn waxaan tegayaa channelka ayaan tegayaa channelka markii aan tago waxaa ii soo baxaya featuredii wixii dhan loogu talagalay halkan yaalla monetization halkan ayuu yaalla waad aragtaan in wax walba ay ku ahaadaan good standing haddii kale accountka lagaa yeeli maayo lacag lagu soo diri maayo marka waad aragtaan wax walba lagu geliyo you can now download videos longer than 15 minutes haddii blog lagaaga dhigo waxaa lagu siinaya dhowr bilood halkan ay kusoo qormayso waxa lagu leeyahay account-kaaga wuxuu caadi kusoo noqon doonaa xilligaas marka laakiin annaga wax walba okay monetization haddii saan u yiraahdo sanaan u riixo wax walba enable marka wax inaan ka bedelo la dooni maayo dashboardka ayaan tegayaa markii aan tago waxaan leeyahay iminka isla meeshii edit ayaan leeyahay markaan yiraahdo waxaan arkaynaa iminka monetizationkii monetize inuu halkan soo galay waana monetization wax walbana sidii loogu talagalay ay u shaqaynayaan marka dhankii haddii aan eegno iyo AdSense waxaa halkan noogu furan AdSense account ayaa noogu furan tabcan inta badan way qarsan yihiin waxaad samaynaysaa accountka iyo wax walba halkan waa qarsan yihiin marka halkan waxaa yaalla today so far lacagta la helay shalay 7 maalmood ugu horeysay asbuucii bishii ugu horeysay finalize earning halkan waxaa yaalla bishii lacagta soo dhacday ayaa taalla most recent payment halkan waxaa yaalla lacagtii ugu dambeysay oo la bixiyey taasoo October 24 la bixiyey performance iyo ad iyo wax walba halkan ay ku jiraan halkan waxaa yaalla performance report ayaa halkan yaalla inta saa ku aragtaan halkan hoose qaarkood ay qarsan yihiin dushana way qarsan yihiin marka account walba adiga aad ku leedahay YouTube halkan ayaa lagu soo xiraya marka sida loogu soo xirana way fududahay dhankan waad eegaysa waxaa ku yaalla account per week product marka waxaad u baahan tahay in aad haysid account oo banki account oo shaqeeya si ay u tijaabiyaan in adigaas ka leedahay tusaale ahaan waxay kusoo dirayaan taano oo dollar ayay kusoo dirayaan way ogaanayaan marka qof walba account-kii uu ku xirmi karaa marka dadka Soomaaliya jooga tabcan hadda bankiyada account-kooda international yihiin ku xirmayaan hadda waxay bilaabeen PayPal in loo isticmaali karo ayay bilaabeen marka qaabkaas ay lacagta usoo diraan marka waxa ugu horeeyaan eegan waxay noqonaysaa iminka haddii aan ku laabto dhankii iyo videogii haddii aan ku laabto wax walba waa diyaar marka sidee ay ku ogaanayaan AdSense inay lacagta u dirayaan si lagu ogaan karaa marka waxaan tegayaa ugu horeyn analyticska ayaan halkan u tegayaa markii aan tago waxaan eegayaa meesha ay wax walba ay ku jiraan channelka tusaale ahaan channelka hoostiisa haddii aan eego channelka waxaa hoos yaalla status and features ayaa yaalla waxaa halkan yaalla monetizationka ayaa yaalla ayaan riixayaa kadib waxaan leeyahay how would I be paid sidee lacag la igu siin karaa lacagtan si ay u siin karaan Google kan ayaad riixaysaa wuxuu ku leeyahay payment and manage lacagta waxaa laga maamulaa dhanka iyo Google AdSense account waa inaad lahaataa you must associate an AdSense account to your YouTube account waa in aad ku xirtaa AdSense account to YouTube account kan ayaad riixaysaa markii aad riixdid iminka waxaa lagu leeyahay kan raac you will be redirected YouTube account si aad AdSense u samaysid next ayaad leedahay iminka waxaan leeyahay haddii aadan lahayn account waxaa leedahay create new Google account waxaa muhiim ah ha samayn accounts fara badan ha samayn wuxuu kuu sheegayaa if you already have AdSense publisher you must sign in waxaad leedahay kan ayaan sign garaynayaa marka accountka AdSense-ga ayaan iminka gelinayaa waxaa la yidhaahdaa sol ayuu ka bilaabanaya kadib waxaan gelinayaa passwordka ayaan gelinayaa enter ayaan leeyahay marka waxaan ku aragnaa YouTube account information you'll be associated accountant noocan ah videoga noocan ayuu noqonayaa kadib waxaan leeyahay accept association ayaan leeyahay halkan redirecting YouTube account ayuu ku leeyahay YouTube ayuu ku geynayaa
marka wuxuu leeyahay you successfully associate your existing account AdSense please iminka halkan tag processka saa u samaysid next ayaan leeyahay iminka waxaan ku xirmayaa accountkan ayaan ku xirmayaa waxaan leeyahay isla accountkii youtube-ka ayaan ku xirmayaa iminka waxaan leeyahay enter way ku dhamaatay halaas ayaa la doonayaa iminka your account is enabled you can enable disable AdSense association waa ujeedaa AdSense account your associate is now approved ayaa lagu sameeyey marka waa disable inaan ka dhigaa sababtoo ah videoga waxaan ugu talagalnay inaan ku sameyno oo keliya tijaabada casharka waayo waa dual oo double video ayaa meesha ku yaala double videona isla horey kasoo ogaanayaan kadibna accountkay kaa xirayaan markaa saa awgeeda waxaan leeyahay disable ka dhigayaan leeyahay disable ayaan ka dhigayaa wuu ka baxayaa you disable yuu leeyahay saas ayaa loo sameeyaa marka waxaad u baahan tahay simply account a video qurux badan a tags fiican description fiican iyo adigoo ilaalisid in accountka aad ku leedahay youtube lagaa xirin AdSense-na double aan ka dhigin laakiin 10-20 youtube aad samayn kartaa video isku mid ha gelin kuwa kala geli tagska ha wanaagsanaadaan linkiya ku samee kadibna waxaad arkaysaa in lacag badan oo business fiican oo shaqo kale aad u baahan inaad ka samaysid marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh oo ahaa request lesson su'aal ay soo weydiiyeen ama cashar ay soo weydiiyeen arday ka mid ah ardayda sologroups.com waa how to link sidee la isugu xiraa youtube account iyo google AdSense ee la isugu xiraa waxaanu sameynay youtube hore u sameynay video yaan gelinay kadibna AdSense accountna waan inay qaabka la isugu xiro wixii macluumaad casharka ku saabsan casharada kale info@sologroups.com anigoo Cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu